ay sugaysay waqtiga la joogo aad loo sugayay ku xurmeeyay inay gaaraan go'aamo reer galmudug Soomaalina ku xurmeeyay u tanaasulay u safray waqtiga u bixiyay aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa waxaan leenahay intii aad shaqooyinkii iyo xafiisyadii ka maqnaydeen in ka muhiimsan baad qabateen in ka weyn baad qabateen tii gaargaarka ahayd midii guud baa la qabtay runtii ammaan iyo sharaf baan idiin haynaa haddaan nahay reer galmudug Soomaali oo dhanna waa idiin haysaa intii talada la isugu yimid qayb ka soo qaadatay soo aastay soo aqbashay aad iyo aad runtii waxaan la ilaaweyn reer galmudug ilaaweyn reer Soomaali ilaaweyn baad gasheen waxaan rabaa inaan si gaargaar u tilmaamo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo markii dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay isu yimaadeen dalbadeen codsadeen soo aqbalay loo yimid taladana dardar geliyay inaan iraahdo madaxdii qaranka waa maasantii waxaan rabaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inaan si gaar ah ugu mahadceliyo runtii waxaan halkaa rabaa inaan ka xuso isumaadka aasaaskiisii si gaar ah inaan u xuso ayagoo dhammaantood wada ammaanan nibadooda ka qaatay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo aasaaskiisa arrintaas ka soo qayb galay runtii madaxweyne Siciid wuxuu muujiyay sadogtihiin kulankeenii gaalkacyo inaan hore u soconno la tashado odayayn badan buu muujiyay waxaanan hubaa inay sidaas runtii aasaaska ku yimid madaxweynayaasha saaxiibada ah walaalaheen ana waxay geysteen taladii aasaaskiidu gaalkacyo ka soo bilowday tii ugu habbooneed oo ah in galmudug la isugu yimaado saaxiibada madaxweynayaasha sharafta leh marti sharafta dhammaan mas'uuliyiinta halkaas ugu timid waa mahadsantihiin gogoshiinii iyo gurigiinina waad joogtaan taladii dambe iyo madashii dambena waa noo mudaysan tahay reer galmudugna waa u mahadcelinayaa sida iyo sharafta aad muujiseen ood ku soo dhaweyseen madaxdii qaranka runtii waxaan ammaan gaar ah Soomaali idinkugu haysaa idinkoon diyaar garow iyo waqti midna laydin siin sida aad u soo dhaweyseen madaxdii qaranka halkaa ka sii wada gogoshii waa idiin taal gogoshii Soomaaliyeed gurigiinay taal madaxdii iyo mas'uuliyiintii sharafta badneed oo inta idinku maamuustayna oo idinka aqbashayna gogoshiina ay yimaadaan oo gurigiina ku tashadaanna si gaar ah isugu xilqaanteen halkaa ka sii wada dardaarankii afgaaniinta iyo fanaaniintu soo bandhigeen waa la fuliyey dardaarankaas waa la taliyey waa la aqbalay waa la idinku xurmeeyey dad inta dhimana waa la gaarayaa guusheeda ilaahay iidankii kalsooni baana ku qabnaa mudane ra'iisul wasaare madaxweynayaal martida sharafta leh soo dhawaada waa mahadsantihiin weliba waxaan rabnaa inaad gurigiina sii joogtaan ku nagaataan haddaan u badano madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaruhu waa nala joogaya maalmaha waa hubaaye oo reer galmudug ah xiiso badan u qaba caawa inta ka muujiyeene madaxweynayaasha madaxweynihii hawl gaar ah oo degdeg ah yeeshaan fasaxaynaa inta kale waa noo sii joogayaan soo saas maaha horta reer galmudug nabadda laguma xama jirine dadkay u nabad jecel yihiin madaxda sharafta leh horta ma laga qaada fariintaas habeen dhawada waxaan idhi reer galmudug warankoodii yaan bay ka tunteen marka qaar waxay yidhahdeen ma waxaad ka wadaa waa is dhiibnay maya beeraan falanaynaa saasaa naga daacada yaambadaasaa naga daacada meeshii wax ka adkaadaan waa baryaynaa waa u gurguranaynaa garkaan soo qabanaynaa soo ma
وما تنتين مدح شرفت له الله يعيسك الله يشرفه قوليستا هيرجع المدن ومحبة halkani waa Samakulan TV waxaad ka heli kartaa wararka dalka iyo dibadda kala soco warar xaqiiqo ah iyo barnaamijyo xiiso badan Samakulan TV